sanad ayaa laga joogaa markii uu dhakhtarkii ugu horeeyay ee ka diga coronavirus uu geeriyooday. kumanaan qof oo Jeynees ah ayaa baraha bulshada ay ku wada xiriirto waxa ay soo dhigayaan sanadka laga joogo markii uu geeriyooday dhakhtarkii Jeyneeska ah ee lagu magacaabay Li Wenliang ka oo ahaa qofkii ugu horeeyay oo digniina ka soo saaray cudurka COVID-19. waxaana la tilmaamayaa in hadda sanad laga joogo markii uu u geeriyooday cudurkaasi coronavirus. dhakhtarkan ayaa geeriyooday 7 bishii Febraayo ee sanadkii tagay ee 2020 kadib markii uu ku dhacay cudurka COVID-19 isaga oo dadka ka daaweynaya dadkaasi oo badankoodii uu ku soo ritay magaalada Wuhan ee wadanka China. dhakhtarka ayaa waxa uu isku dayay dhowr jeer in uu digniina uu siiyo dhaqaatiirta in cudurkani uu yahay cudurka amaba cudur la mid ah midkii loo yaqaanay SARS, balse booliska ayaa ka dalbanayay in uu joojiyo waxa ay ku tilmaameen warar been abuur ah, waxaana la duldhigay ciidan si loo joojiyo ayaa la yiri wararka dhakhtarka uu baahinayo. dhakhtarka oo isagu ahaa dhakhtar dhinaca indhaha ah ee isbitaalka magaalada Wuhan ee bartamaha wadanka China oo markii ugu horeysay laga soo ogaaday xaaladii ugu horeysay qof qaaday cudurka COVID-19 dhamaadkii 2019. dhakhtarkaasi ayaa isagu geeridiisii waxa ay dhalisay mawjado cara ah oo wadankaasi si guuda looga dareemay China. xukuumadda Jeenaha ayaa lagu eedeeyay in sidii la rabay aysan kula dhaqaaqin ka hortaga cudurka COVID-19. isbitaalka Wuhan markii uu buux dhaafiyay bukaanada COVID-19 uu soo ridanayo, xukuumadda ayaa u sheegaysay in ay si weyn ay ula tacaali doonto cudurkaasi khatartiisa. in ka badan 105 milyan oo qof ayaa COVID-19 qaaday, waxaana ku u geeriyootay 2.3 milyan oo ruux. cudurkaasi oo guud ahaan wadamada caalamka iyaga ugu geeriyooday. haddaba Jeynaha siduu ula tacaalay arrimahaasi, sideena looga dareemay hal sano kadib geerida dhakhtarkii ka digay in COVID-19 uu yahay cudur halisa. xorriyadda hadalka ayaa China waxa ay tahay mid xadidan. xukuumadda wadankaasi China ayaa si rasmi ah iyadu waxa ay u samaysaa in ay dadka ay barahoodii bulshada si gaar ah ay ula socoto. waxay dowladda wadankaasi China ay sheegtay in guul ay ka gaartay cudurkaasi maadaama si weyn ay ula tacaashay. dowladda wadankaasi China maalinle ayay dadka uga warahaysaa sida ay u isticmaalaan aaladda baraha bulshada ay ku wada xiriirto. bogga dhakhtarka geeriyooday ee qaabka Twitter-ka u ah dadka Jeyneeska ee Weibo ayaa waxaa la yiri waxa ay noqotay mid dadku ay soo dhigaan ayaa la yiri sawiradiisa iyo sidoo kale sida ay uga xun yihiin in hadalkiisi la dhageysan waayo. 100,000 oo fariimaha ayaa waxaa la soo dhigayay baraha bulshada ka oo lagu tilmaamayay in dhakhtarku uu ahaa qof ku weyn oo aan qulubta shacabka wadankaasi China ka go'i doonin. mid ka mid ah warqadihii amaba fariimihii la boostigareeyay waxaa ka mid ahaa qof isagu sheegay dhakhtarkaygu taariikhda iyo dadka China kuma ilaabi doonaan ayuu yiri. qof kale ayaa waxa uu soo qoray waxaan rumaysnaa in dhammaan dadku ay ku iloobi doonaan sanad kadib, balse waxa uu inta uu ku daray in fikirkaasi aan ku qaldanaa, waayo waxa ay shacabku ay yihiin weli kuwa la nool xusuusahaadi ayuu yiri. muwaadiniinta Wuhan ayaa waxa ay si weyn ay u xusayaan dhakhtarkaasi, waxaana qof lagu magacaabo Li Ban uu u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in uu ka mid ahaa dadkii ugu horeeyay ee dhakhtarka uu ku soo wargeliyo khatarta cudurkaasi COVID-19. sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda lagu wargeliyay cudurkaasi faafistiisa in ay halis ay tahay, balse ay indhaha ay ka laabatay.